Maskaxda sare ee bini'aadamka waxay u kala qaybsantaa laba dhinac oo kala ah midig iyo bidix. Labaduba way wada shaqeeyaan, balse mid baa ku xooggan shaqada. Sidaas darteed ayuu qofku u yeeshaa dabeecado asiga u gaar ah. Midda koowaad, qofka isticmaala maskaxda qaybta midig waa qof ku tiirsan dareen, hal-abuur iyo aragti fog. Qofkaas ma jecla xeerarka adag ama xisaabta adag labaduba. Waa qof jecel waxyaabaha quruxda badan sida muusigada, farshaxanka iyo sawirada. Marka laga hadlo dabeecaddiisa, waa qof aad u dareen badan oo xasaasi ah. Midda saddexaad oo ah waa qof aad u furfuran ama xanuun dareema si degdeg ah. Qofkan isticmaala maskaxda qaybta midig waa qof caajis ka qaada waxyaabaha adag ee tirada badan leh. Midda labaad oo ah qofka isticmaala maskaxda qaybta bidix oo loo yaqaan English left brain waa qof ku tiirsan xisaabta, nidaamka iyo fikirka muuqaalka. Wuxuu jecel yahay xeerarka, caddaynta waxyaabaha aad kala hadlayso. Markii laga hadlo dhanka dabeecaddiisa, waa qof fikir badan, hadalkiisu oo yar yahay laakiin faham fiican leh. Wuxuu jecel yahay inuu xalliyo mushkiladaha. Qofka isticmaala maskaxda qaybta bidix waa qof aad ugu fiican waxbarashada oo in badan wax qora ama akhriya. Wuxuu karti u leeyahay fahamka xisaabta kala duwan. Waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa dadka isticmaala maskaxda qaybta bidix iyo qaybta midig. Dhanka fikirka, maskaxda qaybta bidix markii laga hadlo fikirkooda waa fikir falanqaysan oo faahfaahsan oona macquul ah. Dhanka kale, qofka isticmaala maskaxda qaybta midig waa qof aad u dareen badan. Kiis waa fikir intuu badan mala awaala waxyaabo aan loojiga oo macquul aanan ahayn. Dhanka waxbarashada markii laga hadlo, maskaxda qaybta bidix qofka isticmaalo wuxuu aad u jecel yahay xisaabta, waxyaabaha aadka oo xalinta u baahan iyo xeerarka iyo. Dhanka kale markii la fiiriyo maskaxda qaybta midig qofka isticmaalo waa qof jecel muusigada iyo muuqaalada entertainmentiga. Dhanka shaqada markii laga hadlo, yaa shaqada ku fiican, shaqadeenu ku fiican yahay. Qofka isticmaala maskaxda qaybta bidix waa shaqadu uu ku fiican yahay waxay tahay injineernimo iyo xeerar dejinta maadaama xisaabta aad ugu fiican yahay. Qofka isticmaala maskaxda qaybta midig waa qof ku fiican farshaxan iyo muusig. Markii laga hadlo dabeecadda, maskaxda qaybta bidix qofka isticmaalo waa qof jecel nidaamka, waana qof degan. Dhanka kale markii laga hadlo, qofka isticmaala maskaxda qaybta midig waa qof leh hal-abuur, waana qof aad u furfuran oo xasaasi ah oo fani ah. Gunaanadka aan iskugu imaano, qof walba wuxuu leeyahay laba garab oo ah left brain iyo right brain, balse mid baa mararka qaar ku xoog badan. Taasina waa sababta ay dadku u kala dabeecad duwan yihiin.